ama shurufka way ku kala duwan yihiin dadku. sida caadigaana dhididku ma laha wax ur ah, laakiin waxa uu ka dhalan karaa bakteeriya maqaarka laga helo oo dhididka u beddesha aashito. sidaas ayaanu dhididku ku yeeshaa ur. haddaba qanjidhada dhididka soo daaya waxaa loo kala qaybiyaa 2 nooc. nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa eccrine glands. kuwan jidhka oo idil ayay ku yaalaan, waxayna hawshoodu tahay inay kaantaroolaan heerkulka qofka, balse haddii aad kululaatid waxa ay soo daynayaan dhidid si jidhkaaga loo qaboojiyo. dhididkaasina ma laha wax ur ah. nooca labaad waxaa loo yaqaanaa apocrine glands. qanjidhadan waxaa laga helaa meelaha tintu ay ku taale ee jidhka, sida kikilaha iyo agagaarka cawrada. qanjidhadan waxay shaqo bilaabaan xilliga qaangaadhka, waxayna soo daayaan dheecano loo yaqaano pheromones. intaa kadib waxyaabaha dhididka u yeeli kara urka markii laga reebo bakteeriyada aynu ka soo hadalnay waxaa ka mid a cuntooyinka qaarkood sida toonta, basasha, basbaaska, cabitaanada aashitada leh, kafayga, daawooyinka qaarkood sida kuwa loo qaato niyad jabka. haddaba dadka ugu badan ee shiirkoodu xaddhaafka yahay waa kuwa qanjirada apocrine glandskoodu aad u shaqeeyaan ama jidhkooda uu leeyahay bakteeriyada dhididka urisa. haddaba waxaa isweydiin mudan, yuu ku badan yahay shiirku? haddaynu taa ka jawaabno, badanaa shurufka ama shiirka waxa uu ku badan yahay ragga, maadaama ay ka dhidid badan yihiin dumarka, wuxuuna weliba kusii badan yahay dadka cayilan ama qaba cudurka macaanka. haddaba daawade, su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay sidee baa loo yareeyaa shiirka? haddaba waxaa jira talooyin badan oo dhakhaatiirta iyo cilmiga caafimaadkuba ay siiyaan qofka shiirka badan ama qof kastoo raba inuu iska yareeyo shiirka. waxaana ugu horraysa inuu qofku maalin kasta qubaysto. sidoo kale qofku waa inuu isticmaalaa dhidid yareeyaha loo yaqaano deodoranti. sidoo kalena qofka mar walba waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo inuu iska xiiro timaha ka soo baxa kilkilaha iyo weliba timaha loo yaqaano shuunta ama shiciiraha ee ka soo baxa qaybaha cawrada ee jidhka. sidaa darteed haddana qofka waxaa laga rabaa inuu ka fogaado cunista cuntooyinka aynu ka soo hadalnay. sidoo kale hadduu shiirkaagu xaddaaf yahay, waxaa la duri karaa ama la mudi karaa qanjidhada dhididka soo daaya si loo howlgabiyo.